السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال meel kastaad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena cilmi faafiye. haddii aad channelka cusub tahay magacaygu waa Baaruud Abdiraxmaan. Okay. intaa kadib maanta waxaan idiin wadaa oo aan doonayaa inaan idiin faa'iideeyo 6 sababood oo adiga dadka ay iska ka indhatiraan. run ahaantii bini'aadan baynu nahay oo marmarka qaar waxaa dhacda inaad dareentid inuu qof iska ka indhatirayo adiga kadibna aad isweydiisid talow waa maxay sababta uu qofkaas aniga iska ka indhatirayo. run ahaantii jawaabtu way fududahay oo waxay noqon doonaan sababta uu qofkaas adiga iska ka indhatirayo 6 sababood mid ka mid ah. haddii aad jeceshahay inaad fiirigoon ka faa'iidid bilow ilaa dhammaad daawo oo dhuux. okay, haddaba 6 sababood waxay kala yihiin: 1. waxaad tahay qof isla weyni ku jirto. haddii aad tahay qof isla weyni ku jirto waxay kuu hogaaminaysaa inay dadka kugu nacaan oo ay iska kaa indhatiraan. marka waxaa ku fiican inaad noqotid qof ehelkiisa iyo asxaabtiisa waqti siiya oo farxad la qaybsada. 2. waxaad tahay qof aan daacad ahayn oo isdabamar iyo khiyaano yaqaana. haddii aad sidan tahayna waxaa dhacda in dadka ay iska kaa indhatiraan oo aysan waxba kugu aaminin. marka xaqiiqdii waxaa ku fiican inaad ilaashatid qiimaha aad mujtamaca ku dhex leedahay. 3. waxaad tahay qof dadka wax weydiisigooda badsada. haddii aad tahay qof dadka mar walba wax weydiista ama inta ugu badan wax weydiista, tanna waxay kuu hogaaminaysaa in dadka ay ku karaahiyeystaan oo ay iska kaa indhatiraan. oo horaa loo yidhi baahi badan iyo bukaan badan waa la ysku nacaa. 4. waxaad tahay qof xidhxidhan, yacni qof aan bulshaawi ahayn ayaad tahay. haddii aad tahay qof iska aamusan, tusaale haddii aadan wax hadal ah ama kaftan ah aadan ku darsanayn dadka aad la fadhidid ee aad wada hadlaysaan, tanna waxay kugu sababaysaa in dadka ay iska kaa indhatiraan, maadaama dadka xaqiiqda ay jecel yihiin inay waqti la qaataan dad ehlu farxad ah oo bashaash ah, kaftama, oo waxa macquul ah oo dhacda. tusaale ahaan haddii saaxiibada ay kulan dambe leeyihiin inaysan kugu soo casuumin oo ay dhahaan nagada hebel ha noogu yeedhin, kollayba kulankiina waxba kuma soo biiriyeen oo waa qofkaas iska aamusan. marka waxaa ku fiican haddii aad dad la joogtid ka dhex muuqo oo qof hadalkar ah oo kaftama noqo. 5. waxaad tahay qof negative ah oo yacni xagga positive-ka ah ee wanaagga ah aan ka shaqayn ama aan wax ka egin. waxaad tahay qof balanta aan qiimayn oo dayaca. run ahaantii tanna waa mid ka mid ah sababaha ay dadka iska kaa indhatiraan. halkaas ayuu inooga egyahay barnaamijkeena maanta. waxaana filayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha allah. fadlan haddii aad fiidiyoon ka heshay like saar, haddii aad ku cusub tahay channelkana fadlan subscribe saar oo gambalaalkeena riix si aad u noqotid ugu horeeya ee la socda barnaamij kasta markaan soo gelino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.